2007 2008 dad ka badan 20,000 oo qof ayay ku dileen ciidamada Ethiopia halkan oo taliskii Tigreegu intuu markuu hogaaminayay Ethiopia waxay burburiyeen guriyihii hantidii magaalooyinka waaweyn Muqdisho ay ugu weyn tahay 800 oo kun ayaa qaxday ciidankaas awgees u qaxday waxa way dadka Soomaaliyeed waxa soo dhan wax xasuustaan wayna inay ka soo bogsadaan xaq bay u lahaayeen inay kala gareeyaan oo xuquuqdaasi ay ku sheegtaan taliska Ethiopia hadda ka taliya laakiin ayadoo maaragtay dadka Soomaaliyeed wanaag badan iyo wax badan xeerinaya ayay ka tanaasuleen dadka shabaab uga dhintay ciidamada Ethiopia iyo ciidamada ATMIS oo dhan way jiraan oo dhiigaas waa la bixiyay laakiin taas macnaheedu ma aha aan ku qabsado aan baddaada qaato aan dhulkaada qaato laguma bedeli karo dhiig kastoo la bixiyo waxaa ka badan dhiigga Soomaalidu u bixisay inay ku xorowdo oo isticmaal hore lixdamaadkii uga xorowdo midkii hadda wado oo uga xoroobayso al-shabaabka iyo cidda gadaal ka wada midka cid kasta oo ku soo duusha dalkeeda ay diyaarka ula tahay inay ku bixiso kaas ka weyn dhiiga aan bixinayno laakiin kaas macnaheedu ma ahan dawladaha hadda tirada badan dawladda Uganda dhiig ku bixisay dawladda Burundi baa ciidankeedu dhiig ku bixiyeen Djibouti ayaa ciidankeedu ku dhimanayaan ama ku dhinteenba dawladda dariska Kenya oo aan darisnaha ciidankeedii halkan ay maaragtay ayagoo Soomaaliya u soo gurmanaya wax ku noqdeen taas macnaheedu loo mid ahan dhiig baan bixinaya macnaheedu marnaba lama mid ahan waxa weeye waa ku qabsanaya dhiigii aan bixiyaan sarifaya laba macno ahaan hadduu kaas macno la yahay dhiig dambe ha bixin baan leenahay hadduu kaas la macno yahay waa ku qabsanaya baddaadaan qaadanaya dhiigga waxbaan ku bedelanaya hadduu yahay heshiis caalami ah lagu joogay dawlad la qasbana ma jirsin dawlad walbana iyada soo codsanaysa ciidamadan inay ka mid noqoto ATMIS ama AMISOM la dhihi jiray marka kaasna waxaan rabnaa inaan u kala rifay gareyno oo u cadeyno cidda mar walbaba kooxaha dawladda dariska aan nahay ka hadlaya oo mar walbaba dhiig baan bixinay raba inay ku qariyaan madax banaanidii iyo midnimadii Soomaaliya ku xadgudubka ay ku hayaan iyo heshiiska sharci darrada inay wadadiisa ku sii socdaan inay ku qariyaan dhiig ma qarsoomi karto dhulkana sidii madaxweynuhu habeen dhaweyta uu sheegay dhulka Soomaaliyana wax lagu bedelan karo dhiig baa tir lacag wax lagu bedelan karo ma jiraan wax qiimihiisa gooyaa badda Soomaaliya ma jiraan wax kasto la bixiyo qiimaha laguma qaadan karo laguma sarifan karo marka aad iyo aad baan runtii u mahadsannahay waxaan rabaa halkan inaan u mahad celiyo dawladda Turkiga oo walaalaha nahay oo runtii dadaal xoogan bixinaysa heshiiskan ku bixisay in la heshiiyo ku bixisay welina ku bixinaysa waxaan leenahay heshiiska soo waqtiga roonka saddexaad soo socda wareegga saddexaad soo socda waxaan rajaynaynaa inuu ka duwanaado kuwii hore oo uu noqdo mid caqligu shaqeeyo mid shuruucda caalamiga la ixtiraamo mid madax banaanida iyo qarannimada Soomaaliya aan maaragtay lagu xadgudbi karin amaba wax ku xadgudbaya aysan dawladda Soomaaliya u dul qaadan karin inuusan maaragtay badda Soomaaliya heshiiska ogolaanaya waa UNCLOS cidii diidana waxay rabto waa iska cadda xoog inay wax ku raadisay rabtaa shuruucda caalamiga hadii laga yimaado marka dawladda Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa marka ay timaado qadiyadaha wadanka marka ay timaado qadiyad qaran qabiil meel waa la iska dhigayaa gobol meel baa iska dhigaysa qofaad siyaasadda ku uga duwaneed waad iska dhigaysaa waxaan ugu yeerayaa shacabka Soomaaliyeed aqoonyahanka Soomaaliyeed ninka qalin ku difaaci karaa dalkiisa inuu ku difaaco ninka af ku difaaci karaa qofka af ku difaaci karaa inuu ku difaaco qofka markii loo baahdo dhiigiisa bixinaya inuu ku difaaco dalka Soomaaliya waxa weeye damac soo jireena ayaa weligiisa laga lahaa mar walbana dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba way u midoobi jireen qadiyadan oo kala markay tahay waxaan ka mahad celinayaa kalsoonida dadka Soomaaliyeed ay ku qabaan dawladda Soomaaliya inaanay ka tanaasuli doonin inaysan ka tanaasuleen inaysan u dabcayn
damac kasta oo ka soo gala dhulka Soomaaliya ama dawladda deris ha rabooto ama cid kale ha rabooto